golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa waxaa shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxaana looga dooday qodobo ay ka mid yihiin amniga dalka gaar ahaan howlgallo habeenadii u dambeeyay ciidamada amniga ay ka fuliyeen qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho iyadoona warbixino looga dhageystay wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya taas oo ku aadan madaafiic habeenkii xalay ahaa laga maqlay qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinka gobolka Banaadir markuu soo ilaaday kadib waxaa saxaafadda faahfaahin ka siiyay waxyaalihii looga dooday kulanka golaha wasiirada afayeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayna waxa ugu muhiimsanaa arrimaha amniga iyo warbixin wasaaradda amnigu ay ka soo gudbisay xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa kaloo laga hadlay qorshayaasha qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda oo soo gudbinayay waxyaabaha ujeedooyinka ah iyo shaqadooda sida ay noqon doonto oo ay ka mid tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasaaradda beeraha iyo dhowr wasaaradood oo kale طبعا أهمية جارة ولا حلقة الصومالية سيدي ولفت قيلها أي وزارتها سما يمشقين هاي حق الله ينا كل كلوجها اللي سوجيين وزارة جدة وحاجة لوجها طوري عن شورها بالرجع كلنا وحاجة في سوجيين وصابسن لصوت البضايع شقة اقتصاد التساوية جود دولة iyo hantidoorka guud labadaas shaqo ayaa iyana waxyaabaha laga hadli karaa haddii aan marka guda galno amniga aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay waxaa jiray oo keliya in xalay waxyaabo yaryar ay ka dhaceen magaalada ciidanka howlgalla ayay sameeyeen wasaaradda amnigu sida ay warbixinta u soo gudbisay golaha wasiirada 2 qof ayaa loo qabtay waxyaabihii xalay dhacay waxaa kaloo isna gacanta lagu dhigay gaari laga soo tuurayay qofkaas oo baaritaan lagu wadaa wasaaradaha intaanan u gudbin waxaa kaloo iyana maanta arrin aad iyo aad muhiim ahayd oo jirtay طبعا سيدا الله سبحانه وتعالى waxay aad iyo aad uga shaqeynaysaa sidii kor loogu qaadi lahaa maamulka maaliyadda iyo hufnaanta maaliyadda waxaa jirtay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbisay shakhsiyaadka qabanaya shaqada ku saabsan hantidhowrka guud iyo xisaabiyaha guud ee dalka oo muddo bilooyin ah codsiyo kala duwan ay dalka Soomaalidu u soo gudbinayeen ama araajidooda ay u soo gudbiyeen Maxamed Bilagele Somsat Muqdisho.